wadannada gaalada bari annagoo joogna ayaan mid baan ku nidhi war ilaahay dartii noo raac 2 bilood oo na raac 40 cisho wuxuu yidhi niman yahow dhowr iyo 20 sano aan joogay bur Yurub Denmark man dhowr iyo 20 sano joogay shaqo la'aan bisaarad wadankana dhawaan soo galay buu yidhi haddaan shaqo raadinayaa niman yahow culumoy shaqo ilaahay ii weydiiyay shaqo yar oo fiican buu yidhi annagii buu taalac noo raacayba إلا وأمدهم قري لقصة لبوقته مركزان هذا قبل كلام تجني لأن وحنا هاللي مركز يسقون يجري ذلك أمريكا كوحنا كنا ولا هاي تضبيه صد صنع بل طبعا برينا الرع والنفط هذا سوء إصلاحي وبالآخر هذا درين كي آخر إير قال إلهي الله سبحانه جوني مركز تضبيه صد صنع ودن كجوجا بيوري haddaan maanta dhinta kafan ma haysta buuri waxa la ii sheegay buuri inuu Australia ka qaraxday Australia aanu dhoofayaayo qola nooli ururinaysa culumay ducada igu darab buuri hayo waa kugu darnay socodna waa ka soo noqonay annagoo Dubai habeen marayna airportka Dubai ayaan islaan waxaan aragnay hooyo iska warrama Soomaaliyeed baa tahay Soomaaliyeed baan ahay ma sha Allah hageed ka timid hooyo inamadan wiilashan Australia ku dhasheeno wadanka noloshiisa ma fahmi weyno dalkoogiyo Soomaaliya ayaan ku celinayaa bay igu tiri marka ii soo duceeya kii dalka joogay xagu u socda wuxuu ku duceysay Ilaahu Yurub mari gali kii Yurub joogay Ilaahu maru Mareykan gali North America gali kii Mareykan joogay Australia ii gaarsi kii Australia joogayna noloshii waan garan weyno he Soomaaliya ku soconnaa firaaq baan haysanaa dad meel fadhin kara ma nihiinaku dan baa yiri dayax gacmeedku u horeeyay la diray buu waa kaftan laba nin baa loogu tagay wada dayax dul fadhida Soomaaliya Hindigi baa lagu yiri meesha maxaad ka qabanaysaa markaas uu ganacsi baan ka yar gelinayaa buu waa dhul cilaa Soomaaligii baa maxaad ka qabanaysaa transit baan hay nabiga ku salli xagee markaa u soconaa bal sheega war meeshaan ku fiicannahay inaku waa diinta weeyaan insha Allah dhahada diintu dadaal bay ku iman adduunyadana waa inta Ilaahay noo qadaro diinta dadaalkeega insha Allah ina ka qayb qaadano soo kulligeen diyaar ma nihin Allah inagu anfaco saad noo soo dhaweeysan Allah inii soo dhaweeyo bisha koobaad kulay Sheekh Umar baa kelmad siin doonaaye Sheekh Umar daanaku waa tashkiilkii baan raacina in yar hayga raali hadaan in odaya nagu yiri wacdigii nayr uu macaan yahay bixitaanka maad ka reebtaan abu marka meeshana Sheekh Xasan jazaahullahu khayr wuxuu yiri halkan waa markas buulo ugu bigeeyay waa markas dacwo weeyaan buulo waa markaskiini ku soo dhawaada jazaahullahu khayr Allah barakeeyo inkan Allah in barakeeyo dawa mar walba la yimaada hadda jamaacad cali sanay u wata Djibouti weedaartay bal insha Allah inakuna ijtimaaca Djibouti ee dhacaya bisha 11keega ilaa kulli waa iska soconaayo socodka waa iska badan iska naqaanaaye bal ayaa niyoonayo insha Allah waan niyeysanahay inaan ka soo qayb galo oo soo ducayna anakuna ma sha Allah gacanta u taaga anna gacanta ma goosanaye iska taaga gacanta waa la wada ducaynay الله ينقوا أفعوا صلى الله عليه وسلم إنجر كلمة خطأ لا بس إنجر هالكلمة شاء